السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داودياشنا qiimaha leh kusoo dhawaada Bakai Media Production Zainab Studio magaalada Nairobi aniguna waxaan ahay Yusuf Aadan waxaan idin haynaa barnaamij wareysiyeed gaar ah oo aan markaas la yeelan doono gudoomiye ku-xigeenka degmada Kurtunware fadhigiisu yahay magaalada Bulamareer gudoomiye Muxidiin Khaliif Caliyo gudoomiye kusoo dhawow Bakai Media Production Zainab Studio magaalada Nairobi waa gudoomiye Muxidiin Khaliif Caliyo waa qof ma gudoomiye ku-xigeenka degmada Kurtunware Muxidiin Khaliif Caliyo waxaan ku samaa gudoomiyaha degmada Kurtunware fadhigiisu Bulamareer gudoomiye dabcan sidee baad u qiimeynaysaa xaaladda guud ee magaalada Bulamareer xaaladda guud magaalada Bulamareer xaaladeedu waa aboosto ay inta bartantu way amniga iyo maartay maamulka maartay wada shaqeynta tamaam way awgeer maartay abaar iska jiraan mooy dhibaato kale ma jirto maxay yihiin guulaha ugu waaweyn ee maamulka degmada Kurtunware ku talaabsaday bilihii la soo dhaafay maxay markaasi oo soo kordhiyeen guulo fara badan oo balaaran lagu talaabsaday guulahaas aan soo koobi karin sida oo maartay suuq maartay Bulamareer oo laga dhisay iyo oo maartay solar la keenay isboorti oo maartay la horumariyay intaas ayaa Bulamareer lagu soo hadina weliba maartay waxaan rabnaa inaan oo maartay xafiisyada oo maartay magaalada inaan oo maartay aan ka dhisto aan ka sameeyno qorshahaas oo noo degtiradan waa tahay waa maxay caqabadaha ugu waaweyn ee hadda horyaala maamulka degmada sidii ayaan markaas maamulka ula shaqeeyaa shacabka si markaas loo horumariyo magaalada shacabka magaalada iyo inta maartay odayaasha iyo inta ganacsatada dhalinyarada dhammaan dad isku wada xiran yihiin maamulka amniga waa isku xiran yihiin wax khilaafaad kama jiraan shaqadoon waa tamaam waa wax walba maartay maamulka amniga iyo inta odayaasha dhaqanka beesha weyna Bulamareer dad isku xiran waaye tafraar wax la yiraahdo ma jiraan si horumarti wanaagsan oo fiicanta magaalada Bulamareer gudoomiye maxay tahay qorshaha maamulka ee ku aadan horumarinta adeegyada bulshada sidoo kale waxaa jira qorshe ah in Bulamareer laga dhigo degmo maxaad markaasi nooga sheegi kartaa arrinkaasi qorshahaas way jiraan kooge aasaateen maartay oolahaas maartay oo guda jirnaa insha Allah taas in lagu horumariyo degmada Bulamareer looga dhigi lahaa hawshaas loo guda jirnaa insha Allah taala Allah soo dejiyaa leeyahay waa tahay halkii ayuu marayaa hadda qorshahaasi هذا ملفنا نمر إن شاء الله تعالى ملفنا نمر يا maxay ka faa'iideysan doonaan shacabka Bulamareer hadii markaas degmo ay noqoto maxay faa'iido u noqonaysaa wax badan faa'iido u noqonay in maartay deegaanka wax badan ku soo kordhismaan aqabada oo maartay deegaanka ku soo kordhi wax badan oo maartay faa'iido u noqonay sida maartay ay heli karaan maxkamad ay heli karaan in maartay saldhigga booliis nidaam tayle ay maaneen isbitaalo mashaariic fara badan soo heli karaan markaas gudoomiye goorme ayaad filaysaan in markaas qorshahaas uu hirgalo markuu hadii aan leeyahay insha Allah taala dadalkeena ku jirnaa insha Allah taala sidoo kale waxa la sheegay in markaas in jiro qorshe lagu doonayo in markaas imtixaanka dawladda lagu qabto Bulamareer maxaa ka jira arrintaasi arrinkaas waa jirta sanad hore soo bilaabnay hawshaasi ilaa maadaama maartay ardayda Bulamareer ay maartay dugsi sare oo maartay sanadkii hore 200 ay ahaayeen hadana sababtan oo maartay tirada oo maartay si la wajibaartay in oo maartay mar walba oo maartay marka adeeyo marka aanu noqono taas arintaas maartay ayaan maartay door bidnay inaan oo maartay halkan Bulamareer loo keeno imtixaanka lagu qaado maadaama maartay Bulamareer meel baaxad weyn ay tahay oo degmo qaranto wax walba ay degmo Kurtunware ay medel karto amnigeedu oo maartay safe ay tahay ama soo may degan tahay ciidamada ay joogaan maamulka inta maartay wadaad isku wada xiriyeen qorshahaas dadaalkeeda waa wadnaa haddana markuu waxaan rabnaa inaan oo maartay hamar aan aadno oo odayaal aan dirno si imtixaankan oo maartay sanadkan Bulamareer uu keeno lahaa qorshahaas oo dadaalkaas waa lagu jiraa waa lagu wadaa insha Allah taala waan wada guulaysan doonaa hadii aladmo sidoo kale ma jiraan qorshe markaasi u gaara iskuul u gaara in markaasi xarunta iskuulka imtixaanka lagu qabto iskuul weyna Bulamareer waa kan midka dawladda ah noqoto ama midka alfaaruq ha noqoto labadaas mid ay noqonayaan insha Allah taala waa tahay gudoomiye sidee buu yahay xaaladda amniga magaalada Bulamareer xaaladda amniga magaalada Bulamareer boqolkiiba 100% wax dhibaato kama jiraan amnigeena waa safe waaye wax walba habeenkii waa la socdaa magaalada habeenkii waa la wada shaqeysanayaa ilkan hadda ilaa iyo hadda magaalada kula jiraan dhammaan maartay hadda magaalada gudoomiye ma jiraan qorshayaal cusub oo markaasi lagu horumarinayo kaabayaasha sida wadooyinka isbitaalada iyo iskuulada waxyaalo fara badan ay jiraan kaabayaasha ma soo koobi karo wadooyinka waa noogu jiraan isbitaalada waa noogu jiraan mashaariic fara badan oo jira oo noo maqan insha Allah dadaalkaas waa la wada gudoomiye safarku markuu baxay arima oo maartay si deegaanka Bulamareer horumar la qorsheeyo oo ku tala jira dadaalkan waa wadnaa sidoo hore ay maartay iyo hadda maartay deegaanka Bulamareer
wanaageeda boqolkiiba boqol hadday ay tahay inta dhiman waa la dhamaystiri doonaa insha allahu tacaala. gudoomiye sidee maamulka ula shaqeeya hay-adaha kale ee dowladaha iyo kuwa caalamiga ah kuwa dowladda kuwa caalamiga dhammaan maaragtay dadka isku shabakada isku xiran nahay dowladda federaalka ahaado state-ka ahaadaano hay-adaha dowladda kuwa dowladda aan ahaadan kulli inta maaragtay maamulka degmada Kurtuwaare fariis ee Buulamareer dad isku wada xiran waa wada shaqeyn balaaran ugu dhees wax kala dhaafan ugu dhax jira ma jiraan. mahadsanid gudoomiye waxaan soo gaarnay guntii iyo gunaanadkii barnaamijkeena gudoomiye ugu dambeyntii maxaad fariin u diraysaa shacabka degmada Kurtuwaare gaar ahaan magaalada Buulamareer? dhammaan shacabka degmada Kurtuwaare gaar ahaan Buulamareer waxaan fariin u dirayaa in oo maaragtay culeyska Ilaahay naga qaado abaarta Ilaahay naga saaro in oo maaragtay hay'adaha dawladda ku aan dawladda inay gargaar degdeg soo siiyaan shacabkana oo maaragtay abaarta u jira Ilaahay inuu samata beero insha Allah taala fariintaas u faraya shacabka dad isku xiran oo midaysan waaye dhammaantood dawladnimada aad iyo aad u jecel yihiin wax oo maaragtay culeyska taana ma jiro dawladda Ilaahay la maaragtay taama Ilaahay taama la soo dhigo. waa tahay daawadayaasheeni kaasina wuxuu ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada Kurtuwaare fadhigiisu yahay magaalada Buulamareer gudoomiye Muxidiin Khalifa Caliyo oo aan markaasi wareysi online aan la yeelanay intaan kulmayno barnaamijkan mid la mid ah waxaan idin leenahay Ramadaan Mubaarak.